the government, your government, and the people of Kenya. mahadsanid fiidnimo wanaagsan waad ku mahadsan tahay walaalkay soo dhoweyntaada diiran ee aniga iyo wafdigayga waan ku faraxsanahay inaan joogo halkan sidoo kale waa inaan qiraa inaad tahay nin tadaawuc badan waana jeclaan lahaa inaad soo booqatid madaxtooyadayda waxaan kale oo aan rabaa inaan ugu mahadceliyo dowladdaada iyo shacabka kenyaba kaalintiina nabadda iyo ammaanka soomaaliya dabcan kenya waa qayb ka mid ah howlgalka amisom ee soomaaliya oo ay ku waayeen wiilal iyo gabdho badan oo la dagaalamay al-shabaab iyo kooxaha argagixisada ah waxaan kuu caddaynayaa in nafhuridooda aysan guuldarro ku dhammaan doonin sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo shacabka iyo dowladda martigelinta kumanaan qoys oo soomaali ah kuwaas oo si fiican uga shaqaysta halkan ku ganacsada kuna korsada qoysaskooda si nabad ah mar kasta waan kaaga mahadcelinayaa kenya iyo soomaaliya waxay runtii dhisteen xiriir dhow iyo cilaaqaad taariikhi ah kaas oo ku salaysan xushmad laba geesood ah waana bogaadinayaa mar kasta sida aad sheegtay waxaan ka doodnay arrimo dhowr ah oo ay ku jirto in aan soo celinno dulimaadkii tooska ahaa ee muqdisho iyo nairobi iyo in la joojiyo qadkii wajeer runtii waan kaaga mahadcelinayaa arrintaas sidoo kale waxaan ku heshiinay in aad saraakiisheenna dowladeed aad fiiso ka siisaan garoomadiinna marka ay howlo shaqo u yimaadaan kenya waxaan haysannaa wax badan oo aan wadaagno heer shacab iyo heer dowladeed iyo heer ganacsiba labadeenna dalba waa inay ka faa'iidaystaan xiriirka ganacsi ee naga dhexeeya dadku waxay qaataan waxaan isku khilaafsannahay halkii ay qaadan lahaayeen danaha naga dhexeeya waana taas sababta aan kugu caddaynayo in kiiska maxkamadda caalamiga ah ee adduunka ICJ uusan saamayn doonin xiriirkeenna labada geesoodka ah si aan u hubinno in aan si fiican uga faa'iidaysano xiriirka labadeenna dowladood waad ku mahadsan tahay soo dhoweyntaada qiimaha leh